shirkan jaraa'id ee aanu ku qabanayno xarunta wasaaradda diinta iyo waqaafta aanu halkan hawada u marinaynaa dhammaan imaamyada iyo mu'adiniinta masaajidda jamhuuriyadda Somaliland kadib markii aanu aragnay xeerka kala xadaynta nidaamka xukuumadda iyo hay-adaha madaxa bannaan xeer lambar 17 2015 qodobkiisa 11aad faqradda 4 iyo 10aad oo awood buuxda u siinaya wasaaradda wax ka qabashada arrimaha masaajidada isla markaana aanu aragnay tala soo jeedintii culimada aan u saarnay arrimaha masaajidda iyo sida wax looga qaban lahaa dhan kasta iyo baahida loo qabo in wax laga qabto arrimaha masaajidda hadday tahay wakhtiga adaanka salaadaha iyo khudbadaha jimcayaasha iyo khudbadda ahmiyadda ay u leedahay xagga cibaadada ahmiyadda ay khudbadda iyo mu'adiniinta iyo imaamiyadu u leeyihiin cibaadada ummadda isla markaana ay muhiim tahay in aqoontooda kor loo qaado waxaa wasaaradda diinta iyo waqaaftu ay go-aan ka soo saartay isla markaana ay ku amraysaa dhammaan imaamyada iyo mu'adiniintu inay fuliyaan qodobadan soo socda kow qodobka koowaad oo ku saabsan wakhtiga salaadaha si loo mideeyo adaanka salaadaha faralka ah waxaa la farayaa dhammaan imaamyada masaajidda inay fuliyaan go'aamadan hoos ku xusan qodobkiisa koowaad iyadoo la iswaafajinayo wakhtiga salaadaha sharciga ah iyo kan saacadda waa in la raacaa jadwalka salaadaha ee ay sida sanadlaha ah u soo saarto wasaaradda diinta iyo waqaaftu ee iminkana aan u qaybinayno dhammaan imaamyada iyo mu'adiniinta laba wakhtiga la aqiimayo waxaa isna la raacayaa jadwalka wasaaradda diinta iyo waqaafta ay soo saartay saddex haddii uu ka habsaamo mu'adinku adaanka salaadaha rasmiga ah 10 daqiiqo wax ka badan waxaa la farayaa inaanu mikrofoonka ku addimin ee uu hoos u addimi karo masaajidka gudihiisa afar waa in adaanka koowaad ee wakhtiga daakiraadda la addimo adaanka dambe ee salaadda subax ay leedahay labadaa adaan waa inay wakhtiga waa inay u dhexaysaa wakhti dhan 45 daqiiqo magaalo walba gobol walba degmo kasta adaanka hore iyo adaanka dambe 45 daqiiqo waa in loo dhexaysiiyaa oo iyadoo adaankii hore la addimay ee aan salaadda lagu tukanaynin ee qofka loo kicinayay cibaadada waa in kii kalena aan lagu daba qaban labada adaan waa inay kala soocan yihiin 45 daqiiqana u dhexaynaya 5 haddii uu ka habsaamo mu'adinku adaanka hore waa inaanu addiminin oo uu iska joojiya adaankaa hore oo hadduu soo hambabaro oo soo tooso waa inaanu odhan adaankii hore maan addimin ee waa inuu ku kaaftoomaa adaanka salaadda subax oo wakhtigeeda sugaa 6 haddii uu masjidka uu dersi ka socdo mar kasta wakhtiga adaanku wuxuu ahaanayaa mid ku jaan go-an jadwalka ay dejisay wasaaradda diinta iyo waqaafta oo adaankii waxaa la dhex gelinayaa dersigii haddaanu dhammaan waayo waxaa la diidayaa aan bannaanayn in wakhti dambe
oo darsigii laga baxay in masaajidkii laga addimo dabeetana dadku ay adaan kala maqlaan adaamku wakhtigaa uu leeyahay loo jaangooyey keliya ayuunbaa lagu addimayaa haddii uu darsi masaajidka ka socdo iyo haddii kaleba intaas waxa weeyaan waa qeybta koobaad ee ku saabsan midaynta adaanka iyo aqiimista iyo sida loo agaasimayo codbaahiyaasha mikrofoonada masaajidda saaran ee debadda u baxa iyadana waxaa go-aan laga soo saaray kow waa in samaacadaha debadda laga dhigaa cod dhexe oo macquul ah isla markaana gaadhaya inta jamaca masaajidka looga yimaado laba waa in samaacadaha la kala jeediyaa masaajidada isku dhow dhow oo masjid walba masjidka kale waa inuu samaacaddiisu aanay ku bixin oo aanay soo gaadhin waayo waxaa dhacda mararka qaarkood iyada oo masaajidka salaada lagaga jiro in masjid kale takbiirtiisii masaajidka kale uu soo galo dabeetana dadkii masaajidkaa ku tukanayey ay takbiirtaa kale moodaan inuu imaamkii ama rukuucay ama sujuuday marka taana waa inu iska ilaaliyaa saddex waa in loo isticmaalaa samaacadaha debadda waxaa loo isticmaali karaa kow adaanka waa lagu addimayaa laba aqiimista salaadaha saddex khudbadaha jimcayaasha afar muxaadarooyinka iyo casharada intaaba samaacadda debadda waa lagu isticmaali karaa qodobka afraad waa in laga bakhtiyaa casharada iyo muxaadaraadka samaacadaha dibadda masaajidada u dhow goobaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka iyo hudheelada la seexdo waa in laga bakhtiyaa samaacadda dibadda oo la isticmaalaa samaacadda gudaha wixii cashar lagu bixinayo masaajidka iyo wixii muxaadaro lagu gelayo shan waa in la bakhtiyaa samaacadaha dibadda salaada tahajudka waxa dhacda ramadaanta in tobanka dambe dadku u soo kacaan cibaadada loo yaqaano tahajudka dabadeetana dadkii taraawiixda tukaday oo seexday wakhti dambe seexday haddii samaacadda lagu shudo dee ma seexan karaan cibaadadoodiina way dhammaysteen markaa dadka iyagu doonaya intay taraawiixdii tukadaan tahajudna ay ku daraan ama ay tahajudkii tukadaan waxaa waajib ku ah masaajidda lagaga tukanayo in samaacadda dibadda aan la isticmaali karinin oo la joojiyo oo samaacadda gudaha oo keliya tahajudka lagaga tukado si dadka gudaha ku jira oo keliya ay u maqlaan dibaddana dadkii hurday aan hurdadii looga kicinin lix waa in la bakhtiyaa samaacadaha dibadda salaada duhur iyo ta subax marka la tukado kadib haddii cashar la dhigayo ama wacdi la jeedinayo mar haddii salaaddii subax la tukaday ama salaaddii duhur la tukaday labadaa wakti waxa dhacda dadku inay hurdada ku noqdaan ama ayba seexdaan qaarkood sidaa awgeed waa inaan wacdiga salaadda subax ka dambeeya iyo wacdiga salaadda duhur ka dambeeya ama casharka ka dambeeya waa in samaacadda dibadda la bakhtiyaa si qofkii nasanayey uu nasiino u helo toddoba masaajidada aan lahayn meel laga kala reebo samaacadaha gudaha iyo dibadda waa in loo sameeyaa si deg dega marka go-aankan uu soo gaadho deg deg waa in ay farsamo yaqaan ugu yeedhaan kala reeba samaacadda dibadda iyo samaacadda gudaha si markii la doonana labadaba loo wada isticmaali karo intii fasaxa loo haystay marka kalena la kala reebi karo oo ta gudaha la isticmaali karo ta dibaddana la bakhtiin karo go-aanka wasaaradda ka soo baxay xagga jimcaha tukashadiisa waxaa kow ka ah kow laguma oogi karo masaajidada cusub salaada jimcaha ilaa ay wasaaradda diinta iyo awqaaftu qiimeyn ku samayso kadibna ay oggolaansho bixiso waayo iyadoo aan baahi loo qabinin masaajidka in jimcihii laga ogo masaajidka deriska la-ah ama ku dhow aanu buuxsaminin
ayaa laga yaabaa in ay jeclaystaan dadkii dhisay in jimcahana lagu tukado. marka jimcuhu waa salaad gaara, axkaam gaara bay leedahay. masaajidka hore ilaa uu buuxsamo oo ay keento daruuro ama xaajo iyo baahi ay keento in masaajidka kalena jimcihii lagu ogo, inta ka horeysa waa inaan qofku markuu masaajid dhiso ama xaafadda masaajid laga sameeyo waa inaan jimcaha lagu ogin iyadoo oo aanay arrintaas soo qiimaynin oo oggolaansho aanay bixinin wasaaradda diinta iyo awqaaftu. qofka khudbadda akhriyaya waxaa laga doonayaa inuu buuxiyo shuruuddan soo socota. kow waa in khadiibka laga helaa tilmaamaha iyo shuruudaha ay shareecadu u dhigtay. laba, waxaa lagu akhrin karaa khudbadda jimcaha af carabi iyo af soomaali, waxaana waajib ah in arkaanta khudbadda lagu akhriyo af carabi oo mahadnaqa alle iyo salliga nebiga iyo dardaaranka alle in laga cabsado, in la akhriyo aayad ka mida aayadaha qur-aanka kariimka ah, iyo in dadka muslimiinta loo duceeyo. arkaantaa iyo maaragtay khudbaddu leedahay waa in luqadda carabeed ay ku baxdaa. saddex, aadaanka hore ee jimcaha waxaa la addimayaa 30 daqiiqo ka hor aadaanka rasmiga ah ee wakhtiga salaadda. afar, waa inay khudbadda jimcuhu noqotaa mid kooban oo aan ka badnayn 30 daqiiqo. 5, waa inay khudbadda jimcuhu noqotaa mid ku saabsan danta diineed iyo adduunyo ee bulshada. 6, waa inaanay noqonin khudbadda jimcuhu mid fidno ka dhex abuurta bulshada, dhaawacdana wada jirkooda. 7, waa inaan khadiibku ka dhigan mimbarka fagaaro siyaasadeed oo looga ololeeyo cid gaara. 8, waxaa wasaaradda diinta iyo awqaafta ay bixin doontaa kaadh ay siin doonto qofka khadiibka ah ee masaajid walba ka khudbaynaya si loo kala ogaado qofka khudbaynaya inuu yahay kii u haystay sharciyadda iyo inuu yahay qof aan fasax u haysan khudbadda jimcada. waayo qofka fasaxa u haysta wuxuu ilaalinayaa arkaantii iyo shuruuddii iyo waajibaadkii, waana lagu og yahay inuu hawsha iyo muhiimadda ummadda u hayo. sidaa awgeed waa inuu qofkaasi kaadh qaataa biidni illaahi tacaala wabillahi towfiiq.